السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة سو دوادا ها soo dhawaada channelkan waa Marin Cali hadii aad ugu cusub tahay subscribe ii saar hadii aad ila joogtina aad u mahadsanto walaalkay ama walaasheed qaaliga ahay waan kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan aad iigu soo biirtay soo dhawaad walaal waxa ka soo horeysay walaasha ka weyn ya ama walaasha ka yar saas aad doonto u qaada saas aad rabtid u qaada meehan waxa kaaga soo horeysay walaasha ka weyn ama ka yar hadoo soo dhawo walaalo soo dhawo walaalayaal maanta barnaamijkeena waxa isku saabsan yahay qorsheena waxa isku saabsan yahay nafteena isku saabsan yahay nafteena control inaan ka rabna waa inaan dagaal cir iyo dhul aan ku qaadnaa nafteena nafteena dagaal nagu haysto nafteena dagaal nagu haysto dagaalkeena nagu haysto mid qaniidinka wax aan qabsan lahayn kulli iidaan nagu haysto dagaal inaan ka hortagno oo la dagaalno dagaal cir iyo dhul aan ku qaadnaa rabnaa yaa qorshaha saydi igula jiro asxaabay ana berg laga bilaabo ana nafteyda ka bilaaba ana berg laga bilaabo nafteyda dagaal weyn la galaa adigana sidaas oo kale walaal waxaan ku leeyahay soo dhawow naftaada dagaal la gal waxa iskala dagaali waqti lumis iskala dagaali oo waxa iskala dagaali waqti telefoonka aanay noogu lumiyo noola soo diray telefoonka waxa noola soo diray waqti lumis kan kala dagaalayna hay waxyaabaha maalayacniga oo nafteena cadow ku nahnoon oo adduunkeena aakhirdeena halayna aan kala dagaalamayna gabdhaha arinta gabdhaha ku soo gabdhow idinka horta muhiimastihiin noloshiini adduunkiina dhabaalaba telefoon aa qabtay telefoon bis saahayba telefoonaba haysta arinkaas telefoon leeyahay 24 saac inda lagu taa wax yar ilaahay qeyr siiyo oo ilaahay soo qaboojiyo iimaankooda gadaal u soo celiyo ma ogi inta kala waxa lagu mashquulsan telefoon berga telefoon indhaan telefoon ahayn ma ana naftayda inkiga bilaaba naftayda 24 saac telefoon ku hayo waxaan rabaa inaan iska gooyno oo qeyrka aan raacno oo diinta aan raacano wax barana adduunka sidoo hore waa sii halaawahaaya heeray carabtu waxaan joognaa ay diinta taa ay qaar kamid ay quraamaha kamid ay bedesho oo quraamii qaar kale ay bedeshan joognaa tafsiirka aan barana quraamaha aan xifdina hatta waqtiga aanay tii ilmaheena tii annaka tii cidi walaalehen tii eelkeen ama gabnibo guriyeentoodii aan gabnibo xitaa yaa taas hataa inaan iskala dagaalno waa wax fiican maaha abaayaalow gabdhaha nimanka shaqay binta badan jiraan shaqo ku mashquulsan iyaga tirkooda wiil dhalinyaro oo leeyaal waa jiraan oo saas camal waqtigooda dhawaalo oo saas noqdee ana waxa leeyahay naagta ma waalad maxay waxaan ugu hadlay laakiin wax miin boo intii maanta taagan oo berge in laga hadla mudan aan ka hadlahayaa walaal ma walaashay abaay gacaley waalow intaba waan idin leeyahay waxaan intaas dhabaad in lay wanaagiinaan jecelahay xumaantiina ma raba dhibaatayna sidee in ka qabtaan saas u rajeynaa insha Allah dadaalkaan badina alla ka xabsigana aan badina aan isgarab qabanna qof kasto muslim qofka kale walaalkiisa garab qabto xanuunkii uqdudii dhibaatada iyo colaadan 24 saac reernood istaansan unahay aan daba taagana iska dhaafna ana waaqayna video kale maandeed ku soo saaray dad badan waxay u dhaheen shaqeeyo shaqalaana ku haysay waxaan shaqalaana ku haysay alide laakiin shaqalaani ma haysa channelkanayta waxa iska le walaal qof kasto muslim wax ugu soo deynahaya shaqalaaniga ma aha waxay unaga tahay wanaag qalbi wanaag iga qof muslim ee qalbi fiican yahay walaalkiis wuxuu jecel inuu wax fiican u sheego wixii fiican oo ku anfaca aan ku sheegaani moogi xumaatay dibina ma aan kula soo istaaga on dhibaato kula soo istaaga diyaar mihi marka adi waxa ka waajib hadda ugu cusub subscribe isar hadda ila joogtina waabi ila joogtaa like dhac ku sii hore u orod like dhac ku sii video dhameysa walaasha berg waxay soo dhigtay soo arag insha Allah soo daaw marka maanta maalmihii ka dambe ilaahay nafta baaqada nooga dhiga nolosheena
waxaan isku waaninaynaa inaan nafteena codow ay nagu tahay aan naftaan ka digtoonaana nafta codow ay nagu tahay yaa qofki maanta oo waqtigiisa jadwalkiisa hagaagsadii hor jadwalkiisa u dhagsan yahay kaas walaa adduunkaas waa ka reey kan adduunka ka reey waa kan jadwalkiisa u dhagsan yahay oo jadwalkiisa meel ku dhagsaday oo jadwalkiisa ku socdo oo waqtigiisa quraanka si waqtigiisa telefoonka hatta saacadis qabana og oo saacadis ku hadla iyo saacadis isticmaala og kaasaan adduunka ka reey intaan kale to maalayaan 24 saac on sariirta ka soo korkaceen telefoonada on ku mashquulsan kuwaas way lugooyid waxay ku dhacday oo naftooda hor ordahaysa naftaan iska xakameeyna oo col ku qaadna oo la dagaalna dagaal cirkii dhulka aan ku dagaalna naftaan waa lugooyo adduuni aakhiraba naf shaydaana saaxiibaa la dhahay marka naftaanayta aan kala dagaalno wixii xumaan ah iyo wixii lugooyo ah iyo wixii waqti dayac ah oo waqtigeena waa nooga dhamaana aan kala dagaalna waan loogu baahan yahay in laga dagaalamo maaha inaan kala dagaalno waa loogu baahan yahay marka waxaan u soo deynay waxaan arkay waxyaabo fara badan waxaan arkay oo wallahi maanta waxaan arkay gabar ama wiil 24 saac yaa sirrada say ugu dhamaan u hadla shaqo ma hayagu waxaas qabana mala waxaas ka shaqeyna lama aqaan cidaas soo dhex fadhiya 24 saac telefoonkaas haya intaas banaankaas aad gaarin koona ama wax qaat income soo galiyeeda income soo gasheeda income isaga anfaca telefoonkaas ay timi income ay u noqonay waa may income kuma noqonay 24 saac income maxaan ku wada dhaqaalaas magaalada intaas aad ilaw gaarin koona as qaadili magaalada intaas u kacdid oo isku soo shaqaysid gaarin koona wax ku wareegsatid wax gurigaada anfaca soo galiseeda markaas adi maanta dhan telefoon inta skor fidid oraxtu kugu dhacdo biri oraxtu kugu dhacdo waxa cunto kale xiribtid wax cuntid oo cid ka cuni ka cabi iska saaxane waxaas maxay yihiin yaa 24 saac lacag la'aan odayga xoogaada 20 jir astayo way xoogaada ku dhimaystiran yihiin oo ilaahay ku caafiye lixaad ilaahay ku sii oo aqalka iska fadhax fadhida bal waxa dhahabar yaa waxaas waxa marka naftiya ka adkaatay qofkaas oo kaleeta naftiisa ka horeysa asaga waxaad ogahay malahan naftaas oo meesha u ka xayso ka saxadeeda saxana sakadeeda soo kaca inta u laaxadeeda waa u laaxana waxay naftaas u dirtimo wax kaas qaban kar qofkaas ma jirto yaa wax kale qaban kar ilaahay uu ma jirtaba magan anaha waxaan leeyahay dad ugu cusub subscribe isar hada si la joogtin aadan ku mahad celina walaalay qadarta qiyaamada ani dhahan agtan gabadha waxay saan ugu waramaysa saan u dhihay dhaha kaas walaashina ahay walaashin inkween marna inka yaraanahay waxaan jeclahay wanaagiina ku soo dhaw channelka